wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliland Maxamuud Axmed Barre ayaa waxa uu maanta shahaadooyin guddoonsiiyay ilaa 150 arday oo xirfado kala duwan ka qalin jabiyay sida faahinta warkan uu inoogu soo diray Faysal Maxamed Daahir wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliland Maxamuud Axmed Barre garaad ayaa maanta shahaadooyin guddoonsiiyay 150 arday oo ka qalin jabiyay xirfadaha kala duwan ee kala ah cunto karinta nadiifinta guryaha xanaaneynta carruurta iyo waliba gargaarka degdega ah kuwaas oo ay gacanta ku hayeen hay'adda wadaniga SOS iyo waliba Caritas isla markaana ay maalgelinaysa hay'adda caalamiga SBC waxaana ugu horeynba xafladani ka hadlay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliland Maxamuud Axmed Barre garaad kaas oo hambaliyay ardayda qalin jabisay dardaaranno xoogan oo soo jeediyay waxa kale oo halkan ka qaybgalayaasha barakacayaasha xaafadaha Aadan Suleymaan Yamanhal iyo October waxaan ku guulaadinaya oo ku ambalyeynaya muddadii dheereed ee halka ku sugnaydeen ee tababarka qaadateen sida sabirka muujiseen iyo waxbarashadiinii oo maanta xafladeeda aan fadhino waan ugu ambalyeynaya waxaan aad iyo aad horta maanta ugu faraxsanahay wasaaraddeeda waa hawsheedii waxaan meesha adeegay xirfadu waa wasaaradda shaqada iyo xirfad waxa kale oo aan aad ugu faraxsanahay waxaan ka mid ahay guddiga madaxweynuhu magacaabay bishii Juun ee loo magacaabay tahriibta si loo dooshin lahaa geesta kalena waxa iyaguna munaasabadani ka hadlay agaasimaha hay'adda wadaniga ee SOS Maxamuud Aadan Xaaji Diiriye iyo waliba sarkaal sare oo ka socday hay'adda caalamiga ee Caritas kuwaas oo ku dheeraaday ardaydina qalin jabisay iyo muhiimadda xirfadaha ay barteen mashruucan wuxuu koobsanayay tiradada oo 150 dhan ujeedadu waxay ahayd saacadda wasiir in dadkaas oo dhamaantood dumara in xirfad la baro xirfadaas aan oran karno waa xirfadii ugu horeysay ee waddankeena laga sameeyo intii iminka aynu lagu jiray kor u qaadida maaragtay dadka hay'adda Caritas iyo anjooga wadaniga ah ee SYS muddo laba bilood waxay ku hawlanaayeen sida ay u dhisi lahaayeen xirfad iyagoo siinaya 150 hablood ama 150 dumar oo da'yara oo ka kala yimi saddex xaafadood ee barakacayaasha ay degaan ee la kala yiraahdo Aadan Suleymaan Manhal iyo October sidoo kalena waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday wasaaradaha waxbarashada dibadejinta arrimaha bulshada iyo waliba martisharaf kale oo badan ugu dambeyntiina waxa halkaasi si rasmi ah shahaadooyinkii lagu guddoonsiiyay ardaydii qalin jabisay maanta Faysal Maxamed Daahir telefishinka caalamiga ee Somali Channel Burco wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliland Maxamuud Axmed Barre ayaa waxa uu maanta shahaadooyin guddoonsiiyay ilaa 150 arday oo xirfado kala duwan ka qalin jabiyay sida faahinta warkan uu inoogu soo diray Faysal Maxamed Daahir wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliland Maxamuud Axmed Barre garaad ayaa maanta shahaadooyin guddoonsiiyay 150 arday oo ka qalin jabiyay xirfadaha kala duwan ee kala ah cunto karinta nadiifinta guryaha xanaaneynta carruurta iyo waliba gargaarka degdega ah kuwaas oo ay gacanta ku hayeen hay'adda wadaniga SOS iyo waliba Caritas isla markaana ay maalgelinaysa hay'adda caalamiga SBC waxaana ugu horeynba xafladani ka hadlay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliland Maxamuud Axmed Barre garaad kaas oo hambaliyay ardaydina qalin jabisay dardaaranno xoogan oo soo jeediyay waxa kale oo halkan ka qaybgalayaasha barakacayaasha xaafadaha Aadan Suleymaan Yamanhal